السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكن حسين دانا كلا سocota waa Abqari Aject official Abqari Aject official si hore aan soo sheegnay waxa uu hadlinaa dhaanay barashada naqshada engineering marka sidaad aad u soo saar lahayd marka waxaan ka shaqeynaynaa haduu ilaahay insha Allah taala sidaad u soo saar lahayd naqshad qurux badan aad company-gaad u shaqeysa u soo saari lahayd marka waxaan anagoona ka hadlaynaa qaybaha kale oo leeyahay engineering-ka sida structure-ka waterka electric-ka waxyaabahaas iyo estimationka anoo ka hadlaynaa waxaan dhahnay marka waxaan ka hadlaynaa qaybta kaliya oo Aject engineering sidaad u soo saar lahayd marka naqshad oo qurux badan u soo saar lahayd company-ga u shaqeyso marka insha Allah taala marka waxaan isticmaalinaa dhahnay software-ka loo yaqaan Revit waa ogahay waxaa jiraan software badan jiraan AutoCAD jiro waxaa jiro ArchiCAD jiro SketchUp jiro waxaa jiro GIF Aject jiro Lumion Landscape waxyaabahaas oo dhan jiraan marka waxyaabahaas oo dhan marka waxa uu maarmi kartaa Revit waxyaabahaas oo dhan marka waxay isku imaadeen Revit isku imaadeen marka maadaama qofku uu leeyahay Aject marka waxa uu fiican inuu isticmaalo programkan la yiraahdo Revit waxyaabahaas oo dhan oo u maarmi doona insha Allah taala Revit-ka marka waa adigoo site-ka oo joogo oo wax dhisayo kala waaye tusaale ahaan marka site-ka ay joogto aad fila inaad dhisto waxaad dhisay aasaaska sameynay derbiga ku xijinay roofka ku xijinay saasa wadi nidaamkaas wadi aasina wuxuu leeyahay saas uu leeyahay wax level ziidaha oo isticmaalina arki doona insha Allah taala dabaq haduu yahay waa footing sameeyay foundation-kii wall-kii slab-ka ku xijinay wall-kii kala ku xijinay ilaa saasa uu sii waday marka waxa way waa program aad iyo aad u muhiimsan oo qofka Aject oo qaasatan aad iyo aad u muhiimsan marka insha Allah taala programkaas ay isticmaalayna version-kiisa waxa way waa 2016 marka version badan jiraan at 15 jiro 14 jiro 13 jiro 17 hadda jaza kor u baxno 2017 jiro 18 jiro 19 jiro 20 marka ay noo barbalay wixii ah haysato aad helaysaa isticmaalaya marka aniga waxaan helaa waxaan isticmaalaa 16 marka insha Allah taala isla socdo wanaagsan marka hore waxaan ugu soo hadalnay introduction-ka ugu soo hadalnay wax walba waxay leeyihiin bilow iyo hordhac ay leeyihiin marka hore ugu soo hadalnay waxaan marka programkan waxaan u hadlaynaa waxaan dhahnay insha Allah taala step by step ku wadeena oo qofku fahmi karo oo hore u wadi karo ku dhiiri karo in waxyaabo badan uu sameeyo haddii aan Soomaalinahay waxaan sameynaa carar in hadda waxaan automatic marka soo gal naqshad aad sameysid dag 2D-geeda 3D-geeda hore aad ka taagto loma baahno waxaan waxay leeyihiin waa step leeyihiin magac leeyihiin si anaga hadda magac u kala leeyna Xasan Xuseen Maxamed Jaama ayagan waxay u leeyihiin magacaas marka wax walba shay walbana wuxuu u gaar yahay howl qaas u gaar yahay marka waxaan uga baahan yahay marka waa inaad soo cesho kadaad automatic aad meeshan waa labadan shay waa properties iyo project browser laha waa labada hawsha in ay aad ka fuuleedo labadan shay marka labadan shay adiga shaqada hayo wax automatically gacanta kaaga dhacday tusaale ahaan galada kaasoo kala waxa ay dhacay karsalka way ka baxday marka automatic marka waa inaad warwasho ma ahan hadii aad ka siisid base-kii aad ka dhisan tahay marka automatic aad qaybtan waxa loo yaqaan ribbon automatic qofku inuu dhigi karo review tag user interface properties hadan user interface ku noqo project browser automatically marka adoo walwal iyo qaban waa shaygiisa ku soo laabana marka insha Allah taala waxyaabahan kale way lamid yihiin waa soo qaadan marka waxyaabahan shiyaasha magacaashooda waa soo qaadanay Revit portal ayaa hadda qaybtan loo yaqaana qaybtan waxa loo yaqaan kor quick access toolbar qaybtan waxa loo yaqaan ribbon qaybtan title bar qaybtan waxa loo yaqaan ku shaqeyno work area labadan waa properties project browser loo yaqaan navigation bar loo yaqaan marka waxyaabahan ka soo hadalnay search bar loo yaqaan marka status bar view bar marka insha Allah taala waxa soo dhan ka soo hadalnay in qofkii oo fahmin marka insha Allah taala dib ha ugu laabto soo fahmo duulada insha Allah taala marka waxaan marka intaas aan waxaan programka marka 9% waxaan dhan waxa xoog ka saarayna practical tobanka soo harana waa theory-gaasna waa laga maarmaan waayo waa u baahan tahay insha Allah taala inaad fahanto wax ka fahanto marka waxaan marka introduction-ka aan xooga aan ka baxno waxaan ku xijinaynaa dhahnay filla hadana waxa ku sii xijinaa dabaqii marka saas uu sii wadinaa insha Allah taala marka maanta waxa jecelaystay anaan bilaabo filla
anagona ka tegayna theory-ga aan kusoo tuurna maalmo insha allahu tacaala. marka maanta waxaan bilaabeynaa filan bilaabeyna hadduu ilaahay insha allahu tacaala. marka programka qofkaas uu soo kaco rabta inaad wax bilowdo, sheyga ugu horeeya aad bilaabayso waxaa waaye unit-ka saxane. yes, unit-ka saxane. marka waxaa jira marka laba unit oo la isticmaalo, metric system waxaa jira imperial system. metric system waxaa isticmaala USA iyo most of the country, while inta kale kan kale oo imperial iyo waxaa isticmaala British. badana wuu adag yahay, waa feet iyo inji waxyaabas waaye, pound. marka hadii xariif tahay aad ka siisid number blamekii kuu fuda isticmaaliya. marka ko waxaa saxane unit-ka saxane. unit-ka markaa saxdo waxaa la markaa saxdo unit-ka waxaa kaloo saxana haddana levels waxa yiraahdo, waa meesha ugu muhiimsanaa waaye. waa adigoo program waxaan soo sheegay waxaan programka waa adigoo joogo qaybta dhismaha fieldiga adigoo joogo oo kale waaye. levelka saxane hadduu fila ahay hadduu dabaq ahay, marka levelkaas markaas saarato levelkaas marka wuxuu ka anfacaa qayb walba joog rabto inaad ka shaqeyso qaybteeda bis aad ku right click ku leedahay, double click automatically qaybtaas uu keenaa. hadda meeshan waxaa ii saaran level 1 iyo level 2. markaas la aragno insha Allah taala. marka bilowga waxaan saxanaynaa unit-ka marka laba qaab ku keeni kartaa, inaad shortcut ku keento iyo inaad ku keento meelaha aad kasoo doorato. automatically waxaan arkaynaa marka qaybta kuwaad inaan soo doorano manager leedahay, waxaa leedahay project unit. automatically saas wuxuu ugu soo baxay qaybta aan ku keenay. waxaan ku keenaa marka shortcut UN UN oo lagu soo gaabso unit. marka waxaa saxanay qaybta waa unitskii, waa lengthskii, waa area, waa volume, waa angle-kii, waa slope-kii, waa currency, waa mass distance. qaybtan waa format. marka waxaan ka dhigaynaa qaybtan meter aan ka dhigaynaa insha Allah taala. isla aragna marka qaybtan hadda wuxuu noo taagan yahay millimeter. marka anaga waxaan rabnaa ka dhigna meter. marka waxaan tusaa marka cashiga koreyso muhiim u yahay tusaa. marka waxaan dhahnaa marka wall tusaale ahaan waaye, kabacdi marka wallkii aan sawirana. wallkii marka aan sawirto wallkaas marka wuxuu ii noqday, marka waxaa leedahay annotate atigi waxaa leedahay marka linear meesha marka waa cabirna. marka saa u fahantaan insha Allah taala inta dooranaya. marka wallkaas wuxuu ii noqday cabirkiisa 26. marka waxaa raacsan 3 xibir raacsan. hadda wuxuu ii dooray marka millimeter. mara marka millimeter waxaa rabaa inaan ku shaqeeyo meter. marka millimeter markii aan u beddelo meter waxaan sameynaa waa soo sheegnay cashir kor ku soo qaadanay. marka waxaa millimeter waa midka ugu yar, waa smallest unit waa. marka waxa uu bedelay meter. marka waxaa sameynaa waxa uu qaybinaa kun, waa kan yara ka socota waxa uu socotaa kan weyn kuna uu qaybinaa. marka waxa ku soo haray 26 oo nadiif ah ku soo haray. meeshaas marka darbigaas wuxuu ku noqonaa 26 meter. waxaa isla aragna marka UN aan leedahay si isku bedelo. meeshaan marka waxaa kasoo dooranaya meter. meeshaan afurna waxaa kasoo dooranaya meter. meeshaan waxaa leedahay 2 decimal baxaa leedahay. meeshaan waxaa leedahay meter. okay, meeshaan marka meter square aa dooranaya 2 decimal. meeshaan meter square waa noo yahay. meeshaan hadana waxaa volume waxaa dooranaya cubic meter. meter cubic caadi uu ugu dooran yahay. angle-ki degree ay isticmaalayna waa noo dooran yahay. masha Allah noo saxay. currency waxaa isticmaala dollar oo hadhow marka waxaan gelinaa insha Allah saacad asla arki doona gurigaan qiimihii ku baxayo inta lacag qarash ku baxayo shay walba asla arki insha Allah taala. dollarka dooranay okay aa leedahay. meesha marka mass distance oo kilogram per meter cubic caadi oo noo saxay okay aa leedahay. marka inta aan soo saxno automatically waxa arkay inuu isbedelo. wuxuu isku bedelay 26 meter 26 meter. koror waxa raacsanay marka 3 cibar oo u dhaxin dhodka wuxuu ku sheegaa marka laba digit oo baxsan yahay 26 meter wujudu caadi isku bedel. marka bilaawi waxaa saxanaya marka unitka markaas u socoto oo anaga waxa ku shaqeynaa marka USA metric system ku shaqeynaa. marka baran adiga waxyaabaha kale injiin uu leeyahay hadii aad ka siisid waa ku shaqeyn kartaa. waa kana meeshaan dooranay waxa ku ana feet fractional inches waxyaabahaas oo dhan uu leeyahay decimal inches. marka aad ka siisid no problem dooro cid ku qasbayso malaha wixii aad ka siiso isticmaalaya. marka asaas u saxato marka waxa la yiraahdaa waxa dhan marka waxaan sheegnay marka unitka saxato waxaa saxanay levels.
marka su-aasha waxaa marka maxaa rabnaa inaan sameyno, waxaa rabnaa marka inaan sameyno filla, waxaa rabnaa marka inaan sameyno filla. Filladaas marka waxaa saxanay kow waxaan dhahanay marka elevationkan tagana waxaa jira marka 4 elevation oo la isticmaalo east, north, south iyo west. marka southkaan dooranaynaa, southkii waxaa leedahay double click. yes marka meeshaan waxaa noogu sameysan laba level, level 1 iyo level 2 oo isku jiraan marka 4 meter. afartan marna marka waxaa rabnaa 3 meter. marka level intii laga soo gashtaa, level waxaa laga soo gashtaa meeshaan laga soo gashaa mujitaa levelkaas aad dooranaya. markii aad doorato waxaa rabnaa marka waxaa rabnaa inaan isticmaalno filla. filla automatically markaa rabto inaad isticmaasho waxaa sameynaya kow foundationkii, kow waxaa sameynaya marka foundationkii, kow marka waxaa sameysanaynaa foundationkii. marka shay walba markaa programka aad doorato waxaa kasoo hoos baxaya laba shay, labadan shay noo soo baxa. marka qaybtan waa line ahaan baa ku sawiraya mase big aa leedahay oo asiga ka koobiyeynaya big aa leena marka big line aa dooranaynaa. meesha marka waxaa ka dhigaynaa aas-aaska oo fillada waxaa laga dhigaa badanaa 45 0.45 aa leenahay. okay kabacdi marka waxaa soo istaagaya qaybtan waxaa waa qaybtii hoos u bixiyso waay oo dhismihii aas-aaskii waxyaaba. qaybtan korna waxaa waay qaybtii ka bilaabanaysa waa GL aa dhahnaa marka ground level, meeshii shayga ka bilaabanayo waay kabacdi automatic soo baxay. meesha waxaa dooran marka level 1 aa dooranaya, hoostiisa waxaan rabnaa inaan 45 aan ka sameysano. waa kana maxaa noogu sameysanay aragto 0.45. marka level 3 aa dooranaya automatically marka magaca u bixinay level 3 wuxuu noogu baxshay level 3. level 3 waxaa ku qoray marka foundation, waxaa ku qoray marka foundation. hadhow marka qayb walba aad rabto aad ka shaqeyso oo istaagto yes aa leedahay waxaa noo sameysan marka foundation. marka markii aan foundationka aan sameysno qaybtan kore oo level 1kii waa qaybtii ka bilaabanayo marka markii asaas usoo dhisto waxaa bilaabanaya marka joogi guriga bilaabanayo oo waxaa rabnaa marka filla. marka haddana level aad leedahay big aa leedahay meeshaan waxaa ka dhigay marka 1.5 oo maca angalkii ku jiro roofkii rabnaa marka qaybtan koraa marka waa u bixi marka roofka wuxuu u baxaa kor. wuxuu noogu sameeyey marka level 4 kii aa dooranaya level keligaa leedahay waxaa ku qoray marka roof yes aa leedahay waxaa noo sameysan marka roof aa noo sameysan. marka meeshaan waxaa ka dhigaynaa marka badanaa filadana waxaa ka dhiganaa joogiisa 3 meter. marka meeshaan aan ku dhufanaya, meeshaan aan ku dhufanaya meeshaan 4ka waxaa ka dhigaya automatically marka 3 wuxuu noqday 3. marka hadda waxaa noo dhisan aas-aaskii aa noo dhisan iyo roofkii aan kor u bixi lahayn iyo derbigii joogkiisa aan sameysanay. marka qaybtan waa qaybtii levelkii waxaa ka hooseeya marka foundationkii aas-aaskii aa soo sameysay. aas-aaskii marka aa soo sameysay marka waxaa rabtaa waxaa kuu diyaaray aas-aaskii aa kuu diyaaray marka waxaa rabtaa inaad kor u baxdo marka wallkii oo 3 meter marka intuu ka bilaabana level 1 ka bilaabana kabacdi ilaa wuxuu soconaa marka inta 3 meter. 3 meter markuu dhamaado guriga marka diyaar waa derbigiisii aas-aaskiisa wixiisan diyaar waa marka waxaa rabtaa inaad saarto filla waaye automatically meesha qaybtan waxaa saaray roof oo 1.5 markaas waxaa waaye 1.5 macna angalkii iyo slope oo ku jiro insha Allah taala. markii aan si fiican u sawirno waa isla arkayna insha Allah taala. marka labadaas qaybamood noo diyaarsan insha Allah taala. marka waxaa arkaynaa qaybaha kale marka hadduu ilaahay insha Allah taala inaan automatically aan bilaabo foundation. hadda waa kana automatically meeshaan waxaa noo soo gala marka foundation aan dooranay automatically meesha ka shaqeynayso asiga kurtagi oo ku dhufanay asaa ka shaqeynaya. level 1 hadaa rabto level 1 aad tagi, level 2 haddii rabto level 2 roofkii marka waxaa waay marka qaybta barnaamijka marka si hore usoo sheegay waxaa dhahan waa adigoo joogo site-kii adigoo joogo waa dhahayn. marka insha Allah taala saasaynu ahaa cashigeena marka intaas maanta noo geeyahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.